maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ka dhacday masiibo dabiici ah oo uu sababay fatahaadaha webiga Shabeelle. masiibadan dabiiciga ah waxay galaafatay nafaha 12 ruux waxa sidoo kalena la laayahay dad ay biyuhu qarqiyeen halka ay ku barakaceen boqolaal kun oo dadkii deegaanka deganaa ahi. gurmadkii ugu horeeyay ka bilaabmay deegaanada Soomaalidu waxa uu ahaa mid ay furkiisa lahaayeen bulshada Soomaaliyeed ee deegaanada Puntland, waxaana hadda socda dadaalo dhinac kasta oo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya, ganacsatada iyo hay'adaha gargaarkuba ay qayb kaga yihiin oo lagu samata bixinayo boqolaalka kun ee fatahaadaha webigu saameeyeen. wakiilka magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub fadhiya maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, Dr. Maxamed Cawad Cabbaas, oo war-saxaafadeed ka soo baxay kulamadii jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Belgiumku ka yeelatay xaaladda deegaanada fatahaaduhu saameeyeen oo warbaahinta la wadaagay, waxay baaq dheer ku sheegeen in si wadajir Soomaalidu dibadda iyo gudaba uga qayb qaadato masiibada dabiiciga ah ee saameysay dadka walaalahooda. dadka deegaanka ayaa fatahaadahan u aqoonsaday kuwii ugu waxyeelada badnaa tan iyo inta la og yahay. Zakariya Jeylani, Zab TV.